gudoomiyaha maamulka degmada Balcad mudane Qaasim Cali Nuur Furdug ayaa maanta daafuray tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta bulshada waxaana tababarkan ka faa'iideysanaya konton ruux oo laga soo kala xulay bulshada ku nool degmada Balcad iyo hareeraheeda iyadoo ay soo qabaqaabisay hay'adda Bergof oo ka mid ah hay'adaha ka howlgala gudaha dalka ugaas Maxamed Wali ugaas Xuseen Islaaw oo ka mid ah ka faa'iideystayaasha tababarkan ayaa ka hadlay waxaana uu sheegay in tababarkan ay muhiimad gaar ah u leedahay bulshada ku nool degmada Balcad iyo hareeraheeda waa shir ku saabsan dib u heshiisiinta amba xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka markii la yiraahdo dadka hadda halkan u badan waa dad horay wax u soo dhaqi jiray yaqaanana habka wax loo dhaqo loo xaliyo geed dheer iyo geed gaaban intaba u soo fadhin jiray laakiin tan waxayna baraysaa amba anaga aan hadda horay u soo aragnay ayadoo practical ah ayadoo qoraal ah yani wixii aan naqaanay oo aan ka shaqay jirnay ayadoo farsamaysan amba casriga hadda la maraayo ayaan lagu fahansiiyey nidaamkaasna waxaa iska lahayd hay'adda Bergof waxaa kaloo halkan laga sheegay in degmada Balcad maalmihii hore waxa lagu qaban jiray mar Jabuuti lagu qabtay mar waxa lagu qabtay Muqdisho ilaa iyo Xalana iyo dhulkaas maanta waxa mahad balaaran noo ah inay Balcad ay qaabishay hay'adda Bergof oo Jarmalka ka socoto inay awood u yeelatay nabadgelyadeeda soo dhaweynteeda iyo macallimiinteeda inay qaabisho inay ku soo dhaweysay deegaanka degmada Balcad oo ugu horeeyo gudoomiyada taasna waxa iska leh sharafteeda shacabka iyo maamulka aadan ugu mahad celeynaa inta kadib waxa daafuray tababarka gudoomiyaha maamulka degmada Balcad mudane Qaasim Cali Nuur Furdug isagoo u mahad celiyay hay'adii soo qabanqaabisay tababarkan waxaanu kula dardaarmay ka faa'iideystayaasha inay wixii ay ka barteen halkan u gudbiyaan bulshada kale ee aan jaanis u helin maada labaad waxa u mahad celiyaa hay'adda Bergof Foundation oo ongolaatay inay timaado degmada Balcad kuna qabato seminar ayadana u mahad celiyaa hortii awalan arrinka koowaad Soomaali ay isku haysato amba dhibaatada Soomaaliya ka taagan tahay waa xalinta khilaafaadka maxay Soomaali waa ognahay 30 sano ku dhawaada colaad dhaxtaala dhibaato dhaxtaalo waxa rasmiga ah ee looga gudbi karana waa in islaax bayna naasna laga shaqeeyo gacmaha la isqabsado Soomaalina ay ogaato waxa dhaxyaala inay yihiin kheyraadkoodii dadkoodii dalkoodii iyo diintoodii inay difaacdaan inay ilaashtaan lixda biri oo soconayna insha Allah waan rajeynayno inta soo xulanay amba reer Balcad Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nasiib ugu dhigay ee helay seminaarka inay ka qayb galaan ayagan inay isku taxalluujiyaan inay matalayaan reer Balcad oo dhan ayna qaadaan fikir xambaarsan inay reer Balcad oo dhan u qaadaan wax allaala waxa ay qaadayaan oo ah wax aqoon ha naqato hadaf ha naqato fikir oo geesto qofka ha naqato inuu ku hadlo mas'uuliyadda reer Balcad mas'uuliyadda bulshada reer Balcad dadka hadda meesha isugu yimid bulshada waxaan dareemi karaa inay ka kooban yihiin haddii aanan qaldanaynin culamaa u diin odayaal dhaqan haween adii ururada bulshada dhameystiran xitaa xirfadley oo aan loogu magac daray dadkii dawladihii la shaqeeyay amba systemkii dawladnimada ku shaqeeyay aqoonta dawladda leh inay ka mid yihiin waxa intaas loo dalbadana waxay ahayd inay sii qaadaan qof walba meeshii ay ka timid haday dhaqan tahayna dhaqanka ula laabato haday haween yihiin haweenka ula laabtaan haday dhalinyaro yihiin dhalinyarada ula laabtaan si dadkii loo wada gaarsiiyo seminaarka maanta lagu qabanayo marka seminar aad qaali ah waaye waa seminar laga hadlayo see ummadan kuma samata bixi kartaa ee nabad looga shaqeyn karaa iskhilaafkii isqabsigana looga bixi karaa waxa ka qaadanaynaa marka inuu yahay islaax bayna naas taas ka qaadanayna waxaan rabaa marka insha Allah seminaarka waa noo furan yahay hay'adii iyo hawshan cid raadinay la wareegto insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. Abdullahi Maxamed Xasan, Somali News, Balcad.